السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو هذا إليس يوتيوب channel أما إليس School of Technology waxaan ugu magac daray oo aan maanta kusoo qaadanayo Windows xalay waxaan kaga hadalnay Windows qaybtii hore episode 1 qaybtii koowaad iyo qaybtii labaad in shirkadda Microsoft ay soo saartay Windows 11 24 June 2021 qaybka xiisaana YouTube channelka ayuu ka fiirsan karaa wixii su'aalaha qabtaan waxaad noogu soo gudbin kartaan info@ilays.com waxaan hadda ku jirnaa waa Linux Mint oo kamid ah distroyada ama distributionada Linuxka sideedaba waxaa iska lahaa oo soo saaray Linus Torvalds la yiraahdo oo Finnish ahaa oo mataqaana ma hada ka gaartay ka carooday Microsoft waqtigaas muddo aad u fog marka maanta waxaan ka hadlaynaa cashirkeenan uu ku saabsan yahay focuskeenan uu ku saabsan yahay waa Linux Mint sida ujeedaan waxa uu dhigmaa waa sida Windows ka kale sida halka ujeedaan computerka PC-ga ama halkaas uu ku yaala right mouse click waad sameyn kartaa waad fiirin kartaa wax walbo halkan home key kugu jiro halkan folderada ayaa kugu jiro folderada ayaa ku soo baxay folderada halkan ku jiro waa kuwa ku gaar ah oo ka madax banaan cid kaleeto sida ujeedaan buugaa kalena waa ay raacsan yihiin marka waxa ku jiro desktop key waxa ku jiro documents key waxa ku jiro folder key ama galkii loogu talagalay music-ga waxa ku jiro galkii loogu talagalay picture-ada sawirada waxa ku jiro galkii loogu talagalay video-yada waxa loogu talagalay galkii download-ka loogu talagalay iyo intaan aad ka arkayso marka faa'iido weyn ay leedahay waa marka koowaad waa bilaash waa marka labaad uma baahdo antivirus waa marka saddexaad waa mid agabkeeda oo u dhan Linux Mint operating system kan waa mid uu u dhan yahay agabkiisa oo dadka Windows-ka ka soo haajiray u soo wareego Linux-ka u fudud oo still ku dhisan labadii arrin ugu muhiimsanaa ee kala ah command line-ki iyo GUI oo ah graphic user interface labadaas ayaa la kala yiraahdaa marka sida ujeedaan right mouse click ayaa sameyn kartaa waxaad bedeli kartaa background ko kale hadda tusaale ahaan hadaan idin soo qaato waa la bedeli karaa waa kana change background halkaana tagaysa shaashadan baa ku soo boodayso waan bedeli karnaa hadda madowgaas baan u bedelno oo Linux Mint-ga aad ujeedaan waxaan u bedeli karnaa green waxaan u bedeli karnaa intaan meesha ka muuqato ama waxaan tagi karnaa xagaan waxaan ka bedeli karnaa background-ka xagaarka sorry pink ayaan u bedeli karnaa sida halkaan ka muuqato badaas ayaan tagi karnaa dhinacan kale iyadana waa kana Sydney ayaan tagi karnaa sida doonto waxa kale intaas raacsiisan sawirada adiga aad keensatay ee adiga aad xiiseynaysa aan ahayn magaalooyin ajnabi ah oo aan ku quseyn ayaa tagi kartaa pictureska waxa gashatay hadda masaajidkan waa masaajidka Cabdulaziz sida ujeedaan oo ku yaalo magaalada Muqdisho mar labaad hadii aan isku dayo in aan ku noqdo desktop-ka aan bedelo waa sida Windows-ka kale waa ujeedaan waa graphic user interface waxaan tagaynaa masaajidka 4 rukun sida ugu jeedaan hadda waa kana gadaashan buu ka muuqda okay waxaan isku daynaa inaan mar labaad bedelno hadana aan sawir annaga aan soo qaadano aan gishano sida dad ayaa waxay jecel yihiin inay gishtaan sawirada reerkooda familkooda aabahood hooyadood ama ehelkooda ama wax kale oo ay jecel yihiin oo ama noqon karo dhismo ama noqon karo fikrad ama idea noqon karo marka sida hadda u jeedaan waa kana waxa halkan ku yaala kaniisadii ugu weyneed ama cathedralkii Catholic East Africa ee ku tagal magaalada Muqdisho sida la socotaan hadafkeygu wuxuu yahay inaan idin tuso kaliya in sida Windows-ka loo isticmaali karo ayna fududahay bilaashna ay tahay agabkeedina uu u dhan yahay waa Linux Mint hamoogaan hana ka maqnaan marka hadda dan waxaan dib ugu noqonaynaa oo aan sameynaynaa sidiisii hore ayaan ku soo celinaynaa Uliano kaleeto waxaan raadsanaynaa wax oo mataqaanaa anfaco oo mataqaanaa noo muujiyo sida Windows-ka kaleeto hadda sida ujeedaan waan ka baxnay wuxuu leeyahay startiga marka tagtid waxa halkan kaaga muuqdo dhamaan wixii aad u baahan hadaa u baahan tahay qoraal halkan baa ku qoraysa marka su'aalaha isweydiinta waxay tahay ma heli karaa waxyaabihii aan wax ku qoran lahaa sida Microsoft Office oo ka koobnaa Word-ka wax lagu qorto Excel-ka wax lagu xisaabsado PowerPoint-ka oo bandhigyada lagu sameeyo ama presentation-ka database access-ka database-ka lagu sameeyo publisher oo asagana loogu talagalay waxyaabaha la publish gareynayo ama in la qoro loo baahan yahay ama outlook oo loogu talagalay email-ka ma leeyahay hawa u leeyahay
waxa uu leeyahay LibreOffice uu leeyahay wax la yiraahdo LibreOffice waxa uu ka kooban yahay Write oo ah Microsoft Word oo dhigmo oo compatible la sida hadda ujeedaan shaashada ka soo boodi doon saa ujeedaan waa Write saa halkaas about the LibreOffice about the LibreOffice waa tagi kartaa website kooda ayaa ka soo qaadan kartaa sida ujeedaan marka waxaa noogu xigo inaad tagtid file-ka new ba tagaysaa waxaa leedahay spreadsheet baan u baahnaa dadka yaqaan Microsoft Excel waxay u maleyn doonaan in uu yahay Microsoft Excel ma aha Microsoft Excel halkan waxaa la yiraahdaa sida ujeedaan LibreOffice waa Microsoft version kan 6.4.7.2 oo ah waxa waaye waxa loo yaqaano maaragtay waa mid u dhigmo Microsoft Excel ka saa ujeedaan marka maxaa lagu yiraahdaa waa qolyahan waxay yiraahdaan waxay ugu yeeraan spreadsheet sida ujeedaan halkaas okay waxaan tagaynaa hadda presentation oo u dhigmo Microsoft PowerPoint oo aad ujeedaan agabkiisii uu u dhan yahay haddana bilaash ah haddana compatible la ah oo wixii aad ku soo dhista xaggaas halkaan aad uga shaqeysan karto labada dhinacba marka waa mid faa'iido leh marka sidaas daraadeed waxaan filayaa in aad ka hadda hadii aan iraado kan isi ama kan oo aan iraado waka bandhigi caadi baan u samaysan karaya waa kana click ayuu leeyahay waxa rabtid inaad ku soo bandhigato marka waa agabkiisa waa u dhan yahay waxa kale oo intaan kaaga sii daran oo isagana muhiim ah oo aad arkatid new mar labaad waxaad tagi kartaa database waxaad tagi kartaa formula waxaad tagi kartaa drawing waxaad tagi kartaa labels waxaad tagi kartaa business card master document templates marka waa sida ay sheegay waa mid agabkiisa Linux Mintiga oo operating system oo mid u dhan yahay agabkiisa oo dhan ama all the resources you really need to do your job you can do it with here without paying a single penny so let's get out of here we don't want to save anything Excel waa ka baxayna waxba ma aan hadda waxaan aan sameeyna ma jirto intaan waxay ujeedadina inaan tus sidaas daraadeed maxaa ii bedeli kara waxa imaanaya oo kaleeto Photoshop yaan u baahanahay ama ina waxaan u baahanahay inaan sameeyo tusaale dadku waxay isweydiin doonaan I want to manipulate some photos and change the background or whatever or ama contrasting inaan bedelo maxaa ii bedeli kara Photoshop waxa ku bedeli kara oo qaba Linux Mint maadaama aan idinku iri waa mid agabkiisu u dhan yahay waxa la yiraahdaa GIMP ama GIMP ayaa la yiraahdaa GIMP ayaa la yiraahdaa waa kana marka halkaas ku qorto waka soo booday gym mujadin marka waa ka shaqeysan kartaa everything oo loo baahan yahay ayuu leeyahay waxa doonta ayaad ku sameyn kartaa waa mid u dhigmo Photoshop ma baahnid sida ujeedaan marka halkaas baan uga baxaya waxa kale oo isweydiin oo aad weydiin doontaan war away notepad-ki Windows kan uga bartay wax ku qoranay notepad-ka waxa la yiraahdaa text editor hadda halkaas ku qortay aniga hadda waxaan halkan baan keensaday laakiin hadii ay ku qortay text waxa ku soo baxayo LibreWriter iyo text editor ka ku soo baxayo soo wax garta ma okay markaan halkaas uga gudubno waxa isweydiinaysa war browser ma ku imaada yes browserka wuxuu ku imaada Mozilla Firefox ayaa ku imaada oo muhiim ah kan waa website keena sida ujeedaan ilays.com aad nagala soo xiriiri kartaan dhammaan maadooyinka aan ku dhigno howlo badan ayaa ku socdo faanoli faraka ma qodno dadaalka ayaan ku jirnaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan u fududeyno fursadaha ay leedahay IT-gana aan uga faa'iideyno ayaan qorsheeyno u yahay marka wuxuu leeyahay Mozilla Firefox LibreOffice wixii kale tan waa gashan kartaa hadda waxaad ujeedaa oo kale to aan qabnaa Google Chrome sida la socotaan Google Chrome waa kana Google Chrome baan leenahay Google Chrome meesha rabnaa aali karnaa waxaan tagi karnaa YouTube so dadku badana YouTube-ka u badan yihiin oo mataqaanaa dadku ay ku badan yihiin waxa doonta ayaad ku fiirsan kartaa soo waxa karta ma marka waa arin muhiim ah oo marka doontii saacada doonta aad ku sameyn karto saa ujeedaan marka ma si galay YouTube-yadan iyo waxyaabaha noocan oo kale tahay waxaan isku dayaa in aan halkan aan ka sii wato howsheedii waxa ii haray browserka waan ka hadalnay ma leeyahay email client sababtoo ah Microsoft waxay leedahay waxa uu leeyahay marka aad ku qorto halkaas aad tagto oo aad halkan tagto aad tiraahdo email aad tiraahdo waxa ku soo baaray Thunderbird mail waxa waa email client
email clientigan waxaa hadda ku jira saa ujeedaan soomaalida UK anigoo geedkayga normalka ahaa dhammaantood halkan ayay ku jiraan waad ujeedaan wax walba ayuu leeyahay saa ujeedaan dhammaan folderadeedii Microsoft waan kasoo download garaysto oo computerkayga ayuu iigu jira haddii xaggaas wax ka dhacaan xaggaan baan ku haystaa sida ujeedaan soo waxa garteen ma marka howlo badan ayaa ku jiro oo muhiim ah oo mataqaana arrimo gaar ah marka halkan ayaan uga baxaya waxa uu leeyahay oo kaleeto agabe kale oo muhiimada chatka uu kamid yahay oo aad gashan karto marka iyadana waa u baahan tahay waa gashan kartaa waxaa noo haray ma ku fiirsan karaa maxaa la jiray PDF ma leeyahay yes PDF ka sida ujeedaan bugan waxaan ku fiirsanayaa waa PDF reader haddii aad ku qorto halkaan oo aad tagto PDF aad tagto waka uu ku soo boodaya waxaad ujeedaa document viewer intaan baa ku jirto soo ma jeedaan marka hadda kan baa noo daaran oo haddana oo ku jiro oo ka buugaas baan fiirinaya marka waa kan buugii haddaan ku jiraa soo ma jeedaan marka waa mid agabkiisa u dhan yahay oo muhiim ah aad waxaad doontana gashan karta Windows kana u dhigmo waxaa kaloo intaas uu sii leeyahay oo kaleeto wax la yiraahdo command line ka halkaas baa riixaysa waxaad fiirin kartaa inta uu ka kooban yahay folderada uu ka kooban yahay aad ujeedid waxaad fiirin kartaa computerkan inta saacadood ama inta uu fishidnaa haddii aad ku qorto command ama amarka ah uptime haddaa ku qorto uptime markaa ku qorto wuxuu ku siinayaa computerkan inta uu daarnaa saa ujeedaan 12 wuxuu u daareen 3 hours and 16 minutes one user ayaa isticmaalay load case waka marka halkaas ayaan uga baxaynaa taas mar kale aan usoo noqon doonaa marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan idin soo bandhignay in ay jirto alternative ama wax ku bedeli kara Microsoft operating system keeda ah Windows-ka noocoo doona ha ahaadee ama Microsoft haddii ay geed door fushi haddii geed iska dhaaftaba habkan ayaa ummadda Soomaaliyeed u fudud bilaashna u ah qofka raba inuu IT-ga bartana wax badan uu ku baran karo waan salaam dhamaantiin waxaan idin leenahay maalin wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan like iyo subscribe ka saara si aan hawshan u sii wado oo aan uga faa'iideeyo ummadda Soomaaliyeed Windows-ka waxyaabaha ay wato waa arrimo aan mataqaana xagga marka loo fiiriyo privacy-ga iyo arrimaha ku gaarka xogta ah ku xadgudubto oo ka faa'iideysto waxa la galay mataqaana waqtigii dadka laga faa'iideysanayay daatadooda ama malafka xogaha qofka bini aadanka shirkadaha aysan xog u lahayn shirkadahan big giant-ga sida Google-ka Amazon ama AWS-ka Microsoft intoodaba waxay ku xadgudbaan ayna ka ganacsadaan waa dadka datadooda waxaana la yiraahdaa the age of gold mine waan salaam dhamaantiin waa ilays YouTube channel oo idin leh ka faa'iideysta aan kala faa'iideysano aan isu faa'iideyno yaana isku mashquulin maalin wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin rajaynaa maalin wanaagsan wixii su'aalo oo qabtaan waa nala soo xiriiri kartaan idinkoo noo soo marinayo info@ilays.com ilayskana waxa waaye double L hal L maaha saas la socda waan salaam wabillahi tawfiiq